the only one only big team Liverpool Europe League cimaamadan sharaf leh qiimo leh waxaan ku dhahay xamaasad leh madaxa la iska galaayo cabsi la isku shidaayo Champions League xalay indhaha iga wasaqeeyay aan iskaaga dhaqay caama daabana Jogba iyo Jota Mohamed Salah iyo Darwin Nunes dadkaas ay balansan caawa aniga maxay tahay Champions League la dheelaayo hadana laba maxay tahay Champions League wax ma ka qabanaysan inaga soo gudba anagana waana dhafriseen afar adduunyo ah qarashanaysa wax ma qabsanin right now hadda hurdo ka soo kacay dadka Manchester United taageero waa dad frustration ku dhacay yaa loo qabanin Liverpool iyo United na kala tagay ayagoo Europe League iyo Champions League joogan isku heer isku level maaha caawa indhahaga markaati ku soo dhawaada idan lees dhamaan saaxiibadeeda qiimaha badan meel boodina daafid ka joogtaan fadlan video hadii soo gaaro like saara channelkan subscribe dhaha wixii ra'yiina qaybta comment ugu wadaaga aad u mahadsantiin saaxiibadeeda qiimaha badan waxaan leeyahay hawsha ha socoto channelka labadan bir hoos bacan ka dareemooya team Liverpool iyo team Football waxaan leeyahay kor noo soo qaada oo dhamaantiin muuqaalka da like saartaan waa laga fuuq doonaa channelkeena aad u mahadsantiin xala ceebtii dhacdaan aragnay in Manchester United dhulka la jiiro waan aragnay in ay xooga comeback isku sameeyeen maanta waa aragnay laakiin waxa soo dhan wax ka soo qaadayna malahan nin waxa goosh ugu jiro oo la dhahay Andre Onana ma intuu imaanay gudaha England iyo Manchester United meego inuu qaato waxa dhahay waxa uu maada Manchester United inuu qaado UEFA Champions League wariyaa gool hayaan adinka waa weyn oo kooxda Champions League kula guuleystay eragaas ma dhihin qaladka ugu weyn noloshada ka gashan wuxuu ahaa Inter Milan oo bacteria dheelayso shan caloosh dheelayso oo iskaalmeysanaysa ku qalad kooxdaanaytoy marka dhiiqal waa la gashay Alisson Becker iyo Anderson Morris walaad ma dhihin Champions League u qaadayna kooxdeena marka waxa soo dhan waxa kaaga daran iyo Harry Maguire dadkan u dhigay inkastoo xala u badheelinbo Liverpool ciyaaryahanka ugu dameysan oo ugu taageerayaasha Liverpool ee ugu necab yihiin oo ay dhahan Kenya kooxda noogu wado kan waana dhibay lug iyo labo naga jara mid ka dhahan waa Gomez way bedelka Arnold markuu Arnold maqan yahay intuu Arnold maqan yahay loo dheelaa Gomez ugu dameysan ugu falopsan ugu waxageysan oo ugu bahalkeysan Gomez kaas u jeedin laga ma yaabo shabaqa oo wardiyaha ka yahay Alisson Becker inuu angool ku talo no way marna laga ma yaabo adinkan waxa idii joogo nin harama walaaya joogo qaacada kala day gool always waa ku kacay asaa striker noqonayo habii wuxuu qaranka xitay markuu joogo habii asaa iska talaa marka meeshan ma baraba dood ah Liverpool iyo Manchester United ina ka hadlo ma u baahnimo intaas ay idinku filan xal Champions League dheesheen wax ka jira mana waalid ku raaxaysta Bayern idinku raaxaysatay inkastoo haafka dhaqdhaqaaqa sameeyeen caawa marka Klopp iyo wiilashiisa waxa dheelaan Europa League san daawareena waan baashaareena arag leeyahay xaraarad iyo xamaasad iyo qabababa iyo goolal xilli dambe layahay caawa ugu maaleysi marka Liverpool kulankaas away waaye waa isfartay waa ay maqan tahay banaanka ay ku maqan tahay soo saadaali ciyaartaas maxay ku dhamaan kartaa Liverpool kulankaas ma guuleysan kartaa 86% aniga ahaan waa ay guuleysan kartaa mid kale la isweydiina waxay tahay ma lagu soo bilaabi doonaa labadan nin Darwin Nunes iyo ninkan leeyahay Luis Diaz waa labada u dhaxaad ee ugu weyn xil ciyaareedkan oo haysto Klopp maadaama kulan walba markii la soo galiyo wax badan ay ka bedelayeen aniga hadaa dhanka fiiriyeen waxay la tahay inuu ku soo bilaabayeen oo Jogba iyo Jota iyo ku soo bilaabayo oo backup ahaan u soo gelinayo sidii ayaamahan uu sameeyay macallin Klopp wixii dhaco arki doonaa muuqaalka like saara wixii ra'yigiina qaybta commentiga noogu wadaaga hadii halkaas ay kaga gudubno in Liverpool caawa dheelayso maxaa laga leeyahay ama maxaa maanta wargeysada ay kala yihiin kulamadii kale to dhacay UEFA Champions League maxaana record laga qorayaa UEFA Champions League xalaba waxay ogeedeen Real Madrid waxa lagu leeyahay Real awoodii hormalahan Real Madrid lagu leeyahay because xalay 94 daqiiqo ay baxsatay waliba kooxdaas waa Jarmalka ka dhisan tahay Jude Bellingham gudaha Spanish ka wargeysada ka soo baxo dhamaanta waxay ku leeyihiin mataqaana 100 milyan ciyaaryahanna waxa jiro barashar ay saaraan 100 milyan ay ka awood badan yihiin oo garleysho kale ilaa 2 sano markuu Man City joogo la qabsaday 100 milyan dib ku hayay
laakiin Jude Bellingham ma ahan ciyaaryahan 100 milyan oo dhib ku qabtay oo la dhibaatooday oo macnaha kooxda kala qabsan waay 6 kulan 6 game waliba wuxuu imaaday ciyaaryahankan xilliga dhimashada ama waqtiga oo la leeyahay kooxda khalaas u badbaadinaa marka koonfurada ugu waaweyn Real Madrid aydan dhinaca ka qaadanaysaa maanta gudaha Spanish ka soo baxayo maadaama xalay ay guul muhiim ah ku hogaamiyeen ciyaaryahanka Borussia Dortmund xil ciyaareedkan ay ka soo qaateen asxaabteeda qiimaha badan waa kaasa sheeka halkaas ay marowsaa Inter Milan xalay waxay ku dhacaydna waa aragteen Champions League xil ciyaareedkan yaa isleeda uu qaadi karaa saddex kooxood isleeda way qaadi kartaa qaybta committee way ugu soo wadaagi kartaa Bayern sida loo maleynayo ma aha sida loo maleynayo ma aha gadaal ay shabaq ka taa gadaal Upamecano u joogo oo ani wax dhib idaaminaa bu joogo ma fahamteen Manchester ayadana gadaal ay fix ka tahay Champions League waa ugu soo orbideeda kale Premier League in la qaado wallahi Champions League in la qaado ka fudud because kooxaha Premier League waa isku soo laalaabanaysiin laakiin Champions League nag waa goolashii waa laga bixiyay farqiga aad u mahadsantihiin bye bye